بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجلسدني شنات حلقات كصاب سنة سلسلة صحيح قصص النبوية. سلسلات كانوا مارت يكون أو مقعد الري صحيح قصص النبوية. جلسدي شنات وي قصدنا حديثك أنه قاضنا إن جلسنا شنات أنكو قاضنا إنه من حديث جابر بن عبد الله أي النبي كوري عليه الصلاة والسلام. حديث كان وحصو صار إمام مسلم كتاب قصة صحيحة، سيدو كلا الإمام أحمد وحكوصو صار يا كتاب قصة مسندك، هي كتب كلا سيدا ابن حبان، سيدا حاكم، سيدا طبراني معجب قصة كبير كا هي أنت صار لما وكوصو صار. حديث كان قصة نوح بارسين يا وحيتها أو جلسة الشناضة، قصة الشناضة. نبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله وحوله مال ما كمل النبي وحنا نوجا شيكيه نينك إبليس لديج إبليس اللعين نينك خير كدرها وما ضرب ما أرتد دمية أبونا آدم كسر صار الجنة إبليس بنوجا شيكيه نكاس النبي وحوله عليه الصلاة والسلام نينك إبليس ليه هذا كرسي يا عرش وكفر ديا يا ترى وحودك تا عرش كيسا كرسي ويا لا على الماء بط برتن كذا badda bartankeeda biyaha ayaa kursigiisi u yaala halkaas uu ku fadhiyaa. halkaas markaa wuxuu soo sameeynayaa ciidamadiisi iyo junuudiisi buu halka ka soo diri. badda bartamadeeda ayuu kursiga u yaala halkaas uu fadhiyaa. ciidamadiisi buu halka ka soo diri. markaa ciidamada markuu soo diraya basharkii bini aadamku u soo diri inay shaqadooda qabsadaan oo soo dhumiyaan. ninba wadiifu u diraya, nin qabaaishii dadka inuu isku diro, nin maartay xasadnimo namiimnimo, nin shirki inuu ku rido, nin bidca inuu ku rido, dadkii familkii deganaa inuu kala geeya. ninba shaqo u diraya. shaqadii markay soo qabtaan ninba wuxuu la soo kulmay iyo shaqadu soo qabtay ribood bay dib u soo celinayaan. nin kastana waa ka warguraya riboodku keenay iyo shaqadu soo qabtay ayuu maartay riboodkeedii u keenaya. xadiidku wuxuu leeyahay ninka ugu dhawaan badan manzilatan xagga manzilada xagga fitnadana ugu maartay kan ugu weyn xagga fitnada weyn أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ويان. منزلة هانية شقاء هانية درجة هان نينك أوغو سودو واساقا وحقي سوحيقا ونينك أوغو فتنة بضانوي. مركا نينك استمركو الرباط وكانو نينك أوغو الرباط أضاق بحوليه هاي نينك استمركو دي مركو وحاسان كو سميه بل وحاسان كو سمان وحاسان سميه أيا وحوليه هاي ما صنعتها شيئا وحبا ماذا سمينين وحاس شوقبتي مجرد kadib baa waxa uu imanaya mid baa uu iman markaas wuxuu leeyahay anigu maanta reer wada degan oo isqaba oo famila oo zawjo iyo zawjkeedii iyo degan ayaa fitan intaan dhax dhigay ayaan ku dhax galgashay kala geeyay hatta faraqtu baynahu wa bayna imraatihi ila aan maartay kala geeyay zawjkii iyo zawjadiisii ay kala tagaan oo kala maartay isfuraan. bimaana fitan kan dhax dhigay kama nazuulin ila aan kala geeyo isfuraan oo zawjkii zawjadii u furo oo guriga halka uu ku burburo ila heerkaasan aanu gaaray. markaas nabi wuxuu alayhi salaatu wasalaam fayudnihi minhu kaasu soo dhawaysanaya. ninkaasu soo dhawaynaya markaas wuxuu leeyahay ni'ma anta bulay. markaa nin la amaano ama wanaag mudan adiga way adaa ugu mudnaan badan bulay. ni'ma anta almaqsuus bil madhi anta weeyaan, bimaana adiga ayaa ugu ni'ma badan ama ugu qiimo badan. qof maartay jaga la siiyo iyo manzila la siiyana ninka ugu qiimo badan baa tahay. al-imaam al-ahmash Sulaiman bin Mihran rahmatullahi alayhi oo ragga ruwaada xadiidka warinaya wuxuu leeyahay waxa kale u malaynayaa inuu maartay saxaabigu u yiri ama nabigu u yiri fayaltazimuhu markaas uu soo dhawaysanayaayo laabtiisu saa ugu soo dumaya mucaanaqaynaya. waa kan buulay ninka shaqada la qabtay shaqada la diray soo qabtay. xadiidka ikhwati filaahi wuxuu noo sheegayaa qisada أولاً إبليس كرسيجيسا يسلقيسا يمركزكيسا وجوين إنه فوق البحر بيها الدش هذا وبرتمضى بضع إنه هالكاتشو قابك وجوسه جايه الله أعلم بيها وانوتش ده أنا رجنا كرسي هذه اللي دول لقى مشي الدش هذا اللي صار ما يستاجي. ومع ذلك النبي وحناش شيء كرسي أما مركز إبليس يماجه فردي بضع برتن كذا نيت. إذا قابك وجوسه نانا هي كرسي جزاسيد ويها الله أعلم إلهي بقى. هيا لو واحد عقل اللي كاني كرين إلا نص يوحي مويان إنه هالكا كسود هالكا سلقيسو يهاي بان كقاضان إن حديث
waxaa kaloon ka qaadanaynaa inuu ibliis ciidamadiisa halkaa ka soo diro halkaasuu ciidamadii ka soo dirhayaa shaqooyin kala duwan buuna u dirahayaa waxaa kaloon ka faa'iidaysanaynaa oo muhiimka ah agtiisa ibliis ninka ugu darajo sarreeya oo jagada ugu weyn uu siinhayo taajka uu madaxa u gelinayo waa ninka reer degan dumiye wey ninka reer degan dumiya ninkaasuu ugu jecel yahay ibliiska ninka uu ugu jecel ciidamadiisa waa ninka reer degan uu dumiye saa darteed waxaan rabaa inaanu naftayda iyo naftiinaba aan idhaahdo war ibliis iyo najaana siin wareeraha burburhaya ha laga ilaaliyo burburka waxa xadiidku wuxuu nabigu leeyahay dadkii kale oo dhan markay junuudiisa kale oo dhan markay report keenaan wuxuu leeyahay marka ma sanacta shay waxa ma samaynin ilaa uu uga yimaado ninkii reerka burburiyo oo yiraahdo anuu reer degan baan intaan fitan dhax dhigay ilaa ay kala tagaan oo isfuraan baan ku dhex jiray ilaa aan kala geeyo markaas wuxuu leeyahay wuu soo dhawaysanaya bal markaas mucaanaqeynayaayo shafka ayuu saaranayaayo laabtiisa u soo dumanaya nicma anta buu dhihi markaa idan macnaheedu waxa weeye ibliis wuxuu ugu farax badan yahay oo ugu jecel yahay waa reer degan oo burbura wey reer degan oo burbura wey waa arrin khatar wey arrin aad iyo aad markaa khatar wey inuu qofka muslimka uu se ibliis jaanis u siinin oo ka ilaaliyo oo guriga burburka uu ka ilaaliyo allahumma hadi waxun la wadi waayo loo dul qaadan waayo mooyaan inta uu ilaalin kara guriga inuu ilaaliyo laana waa ibliis shaqadii waartu wuxuu ibliis ku farxi lahaa wey reer kasta oo burbura ibliis waa ku farxaya jaguna siinaya ninka shaqada soo qabtay oo ciidamadiisa kamida xadiidka waxa kale culimadu ay ku sharxaan waxay leeyihiin badda ardada ilaahay al-kura al-ardiya waxay leeyihiin bad inta biyaa iyo inta yaabiska afar jeer marka afar la qaybiyo afar qayb laga dhigo saddex kamida waa biyo wey hal qaybna waxa weeyaan waa ardul yaabis weeyaan idan inta biyaha ayaa badan inta ma artay yaabiskan biyaha aan lahayn bay culimadu xadiidkaas ay ku sharxaan khulaasadii nuxurkaan rabaa waxay tahay xadiidka wuxuu nabarahayaa ibliis ciidamadiisa ninka ugu sarreeya jagada ugu sarreysa la siinhayo iyo garaadada ugu weyn la siinhayo ibliisna uu soo dhawaysanayo madaxana uu u ruuxaayo maarta nicma antana uu leeyahay laabtana uu soo gashanayo waa ninka reer burburiye ciidamada ninka reer burburiye ninkaas ugu jecel yahay idan ha laga digtoonaado arrinkaas arrintaa waa arrin khatara idan reerku mas'uuliyad weeyaan laana familka hadii famil muslimiin ay yihiin familka muslimiinta oo caruurtii iyo reerkaas familka haduu wada degan yahay oo famil is haysta yahay yani halka waxa ka soo baxaya islaam iyo cibaada ilaahay iyo wanaag iyo khayr baa ka soo bixi ibliisna mid ma ogolo laakiin haduu reerku burburo oo khilaaf dhaxdooda uu galo oo lis afalagaadeeyo oo lis caayo reerkii kala tago fasaad halka ka iman caruurtii baa laga yaabaa inay fasaadaan waalidiintii baa laga yaabaa naftirkooda inay inxiraafaan وهكذا دبكاسنا إبليس كو كفر حيوي إلهي سبحانه وتعالى وحن وديسننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه نقا إلى لينك إبليس أن نقنن كوا هذه يشير شقده وتشعلي هي عندما دي أصدر صدا كوا سماية إن أنا نقنن بأن إلهي سبحانه وتعالى وديسننا إذا حذاري هلا قد دكتون هذا قصة حديث نوح بارسين هاي والدرجة ذا وصل رئيس إبليس عندما دي سوسين هايو نكرر بربرية إذا بربركو حاجة نكو كإيمان كرا حق زوجتنا وكإيمان كرا لبضوا ضبلوك بيكو يالان كران قف كسو إن هذا إسكيل لسرهر كدجن إذ وضع الإستان إنه قعنت هذا مصاب كائنه كبر برا يحق هذا إنه إبليس كسو قالوا إن أتكيل لسبب له بهاي إلهي سبحانه وتعالى وحودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حق نتصون نقول رزاقا حق راعتان كيسا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.